qofkii igu yiraahdo kelimada maya qofkii intuu soo hor istaago afkiisa aan ka maqlo may kawban kaga siinaya adduunyadana waan dhaafinaya Caadil Cafiifi wuxuu u dhashay dalkaasi Masar wuxuuna ku noolaa meelaha tuulooyinka magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha ka fog mid kamida ninkan haddaba wuxuu go'aansaday intuu jirkiisa dhisay uu gym galay uu murqo waaweyn isu yeelay afar dhalinyaro oo isaga daba socoto murqo waaweyn uu samaystay inuu tuulada sida u dhex wareego isagoo iskibirinayo garbaha iyo gacmaha sidaas u kala bixbixinaya qof walba oo dadka tuulada kamid ahna uu lacag baad ah ka qaado qofkii hor istaagay ee ku yiraahdo mayna uu ka siiyo ugu horeyn wuxuu dilay marka nin meel cafeteria tuulada ku lahaa oo diiday waxa uu rabay iyo dalabkiisa iyo maqaayadiisa intuu soo galo inuu bilaash wax kaga cuno kadibna wuxuu dilay nin kale oo dukaan la mar saddexaadkiina wuxuu dilay mid kamida kuwa laftirkooda laga cabsaday waxyaabahan mamnuucaadka daroogada ka ganacsada wuxuu meesha waxaan doonayaa anigu inaan boqor ka ahaado ma doonayo qof kale sideedoo kale ama kibir badan ama dad ay u shaqeeyaan ama ay daba socdaan inuu igula noolaado tuuladii marka ninkan Caadil la yiraahdo uu ku noolaa iyo tuulooyinkii kale ku dhadhawaayay agagaarka dhan dadkii joogay aad bay u cabsadeen cabsi iyo baqdin aan caadi ahayn bayna ku noolaayeen waxayna mar walba ka codsanayeen laamaha amniga in ninka laga soo qabto laamaha amnigu marka waxay sameeyeen wax walba dadaal kasta oo ninka ku soo qabanayaan wayna soo qaban kari waayeen maxkamad baana xukuntay waxaana lagu xukumay dil isagoo maqan yahay oo la soo qabanin baa dil lagu xukumay ninkii dil marka lagu xukumay marka laamaha amniga waxa amar lagu siiyay ninka inay soo qabtaan ama isagoo nool keenaan ama isagoo meydkiisa ay keenaan amar baa lagu siiyay tuuladii uu ku noolaa iyo agagaarkii meeshii miyiga markuu iskaga soo tagay wuxuuna yimid magaalada Iskandariya wuxuuna bilaabay magaaladaas dhexdeeda inuu ku dhuumaalaysto laakiin ugu dambeyn waa la soo qabtay markii la soo qabanay ugu dambeyn meesha uu ku jiray meesha jooga la ogaaday markii la rabay in la soo qabtana askartii uu iska difaacay waxay kala kulmeen dagaal iyo xabado 14 xabadood baa ku dhacday meydkiisii oo 14 xabadood ay ku yaalaan bayna askartii maxkamadda keenan ilaa waxa lagu amray ninka inay soo qabtaan oo keenaan ama meydkiisa ama isagoo nool meydkiisa 14 xabadood ku dhacday bay keeneen marba haduu dil ku xukunaa dilkii bay u soo dadajiyeen dadkii tuulooyinka ku noolaana waxa la dhadaysin nabadgelyo ku noolaada khalaas hadda kadib cid aad ka baqaysaan ma jirto waa arrin gabadhan Sawda hadal cajiib ah ayay soo qaataa ama qiso cajiib ah waxa la yiri maamaha waxay ahayd nin iswaalaba waabiya hela dabcan umada Soomaaliyeed dhibaato ayaa muddo dheer haysatay haba isdhaxasho oo mid ka dambaysa si dhaxasho waxaan xasuustaa marka qisada waxaan u soo qaatay sheekadan hadda koor tuulo ama magaalo ayaan tagay inkastoo daadii xilliga ay yareed waxaan arkay marka nin sida ninkan oo kala ah magaalo u haystay marka baabuurta magaalada ka baxda ayuu wuxuu u yahay xamaaliga magaalada baabuurta ka rara ayuu wuxuu u yahay ninka ugu sareeya xooggiisa marka cid la hadli kartaba ma jirtaba gabadhii hore buu qaatay adoo xogaa yara shalaysan oo makhaayid faradu ku yimaado wax fadhiyo ka istaag meesha waa nin murqo waaweyn oo hadda balaa weliga dhinaciisa u kala dhigin oo halaag ah marka tuuladii ama xaafadii ama deegaankii oo dhan buu ku sameeyay wax la yiraahdo xisaar ama go'doobin iyo ku sameeyay ninkii marka Ilaahay wuxuu qadaray ninba wuxuu ninkan aanu qiyaad ma ka sameysanayaa horta waxa loo sheegay wuxuu ninkan baa meesha u gabagabaysanta waxa la yiri ninkan waa bahal toora ah oo bala ah oo xagga samada kore laga soo hindhisay dhulku soo dhacay marka murqiis dadka ay tusaya خلاص nin ku dhaca nin la daa iyo nin ka weyn iyo mid ka yarba wax u dhaca waa la waayay cid kasto ismaagaan gag umusinaya dhulku buu dhigaya wiilkii baa yoriya ii kaadii maanta anigu maxaa sameeyay waxa la hubaa oo la hayaa hadii mulkumadku uusan imarin magaala ama ana ka talay ama ka talay marka ninku magaalada uu ku cusub magaala kale uu ka imaaday wuxuu yiraahdan qaylaad maalin kasta aan ka qaadi waayin been baa inii sheegay haye soo daabali waayahay marka sida ay la yiri ninkii
asagoo marka baabuur wiil eryanay oo wiil inta isku dhaceen ayuu eryanayay marka gaadhigu kula meeraysanaya baabuur rana buuxa jaw boota baa la yiraahdaa jaw boota meeshaas jaw boota baa la yiraahdaa marka maalikii asagoo saa u eryanay umbu adeekanno mugti ninkii wuxuu rabaa qaab ku maago soo wuxuu sameeyay markaasi ninkii wuu dhigay ninkii yaa ku fay marka gacmuhu dhuksi markaasuu war maxay tiri wariya nacalaadi markaasuu war nacalaadi baf buu ka siibay allah markaas dadkii waa isku soo baxay ninkii markaas saacituu qaadiyo halka ku dhustay dhag ka siib mahdi wuu hogay mahdigu saa u qofbay saa iska timkaasuu waa nin la maaran waaye hadee waa qooqa nin qooqaabo shoo ha moogtay markaas oo dan mar la yo daf sooyi saa intuu u qaaday oo cid ka geeyey ii soo riday dam inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markaasuu yaabay war ninkan balaayada ee laftiisa daruuriyaha dushooda laga soo xindhisay maxay yihiin muxuu yahay ashhadu an laa ilaaha illa allah ninkii nimanka la kala qabka kii wuxuu yidhi soo daaye ninkii asagoo yaaban yaa dhig la sii qaaday waa la yidhi meel baa la geeyey waa la soo daweeyey wuxuu yidhi intuu xagga soo maray ninkii u yeedhay waa la u yeedhay war haye markaasuu wariyo xaggee lagaa soo xindhisay nin halaagaa waa tahay oo cajiib xaggee lagaa soo xindhisay maxaa yeelay magaal qaad buu qaa markaas wuxuu qaadka kaama rabo muxuu marka kana wuxuu ka baqayaa shirqool القاط والشر قراه نيك على تحال ultimo maalin kasta ninkii sidoo dhahay waa qayraad baan ka qaadan doono magaalada labadooda ay noqon marka dambe marka ka saaf soo qaatay Soomaaliya u soo markaa ninkii deegaan ma qaar waxa jirta nin ka soo isqabtaan oo ka dhiga meesha doon u safro oo tafsiiro meesha doonto marka nin kastoo ay isqabtaan ba deegaanka Soomaaliyeed maanta oo 26 ay tahay 2026 nin waxa jira ninka isqabtaan ba dhulka dhiga haday noqdo fikir haday noqdo siyaasad haday noqdo dagaal haday noqoto hal la dhaho iyo hal la dhigaba nin waxa jira balaa balika soo qabta soo sheega commentiga la soo wadaaga ninka balada ah oo ninka isqabtaan xagga fikradda ideyada afkaarta siyaasadda maskaxda aqliga dagaalka aan la loolin karin ninkaas ayna ka raba dul qaatanaya walla ka xanaaqan ninkaas baa raba inaad commentiga adigu la soo wadaagtaan ninka kulli hadda sida hadda aan aad i aragtaan ayaana u arkaa ninkaas mutaqaanaan ninkaas waxa raba in hayli deynaya wana cajiiba